فرحت بلا ريرين يعني إليهن هبلايا ويل بيكو عرته هبلايا قبر بيدشي مقعان وبحنا فاحفظ لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا وحور إنك شاعرك قبياغا انت هذا الدوية كنا وشاه إلهي أمركي سحفظ ودينت إلهي جل وعلا وكوكو داقي حفظ وسد إلهي دونا يؤسعو سمال انت دمان يسو الدوية أدوغا بحضا أدوغا فرحسن dadkuna agtaada ay la lilmayaan la ooyaan sharka iyo khayrkana adduunkana la dhigay daarta sharka laga qaadana waa halkan daarta khayrka laga qaadanayna waa halkan khayr iyo sharkuna waxay ka soo baxayaan waa bini'aadanka jirkiisa khayrku waxa uu ka soo baxaya waa qofka bini'aadanka jirkiisa sharkuna adiga buu ka soo baxaya khayrku carabkanu ka soo baxaya kalimatu tayyibatu sadaqa bu nabigu yiri كلمة وناكسن هدات كو هذا شوا الصدقات ويان هدات كلمة عي أتكو هذا شنو والدم ويان إيش هذا هدات كو في رسل مارك تاني آيات كونيجا سيد إلهي عرك يقول كو أبو ريات كو أكتو إلهي كو حصوصتنا أجر أيال لقو قريا إيش هذا هدات معاصدة كو أكتنا دم أيال لقو قريا قعنت هذاس هدات غفق مسلم كاد وحقوق بطوط كو عاوسنا أجر يا حسنات بلغاقو قريا haddii gacantaada ummadda aad ku dhibtinna dambi baa lagugu qorayaa waa isla gacantii uma marna khayr samaynaysa marna shar bay samaynaysaa isla carabkii baa marna quraan akhrinaya marna uu heesaya isla dhagtii baa marna quraan dhageysanayso xadiiska dhageysanaysa marna hees iyo laqwi iyo cayb ay dhageysanaysaa isla calooshii baa marna xaaraan galaysa marna xalaal buu ay galaysa isla lugtii marna miskiidka u soconaysa marna xagga sinemaha iyo maaragtay fiidiyooga iyo macaasida u soconaysa makiinatul a'maal qofka bini aadanka jirkiisan ayaa a'maashu ka soo baxaysa sharkuna adigu ka soo baxaya khayrkuna adigu ka soo baxaya ilaahayna bini aadanka wuxuu kula tacaamulaya amalkoogu kula tacaamulaya mooyene bini aadanka waxay haystaan dibadda ka yaala ilaahay bini aadanka kula tacaamuli maayo lidalika nabigeenu alayhi salatu wassalaam isagoo makiinada dadku inay toosiyaan makiinadan ilaahayna siiyay makiinadan bilaash baa lagu siiyay bilaash indhaha lacag kama bixin dhagahana lacag kama bixin gacanta lacag kama bixin lugahana ku socoto lacag kama bixin arabkana ku hadlaysa lacag kama bixin sankana arfiga ku sheegaya waxa qadmooni wax u goon ku kala sheegayna lacag kama bixin ilaahay ba kugu deeqay tabaaraka wa taala wallahu akhrajakum min butun ummahatikum la ta'lamuna shay'a وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون أديكو ير أو وحبا أنا قرنين أيا إلهي علوش ويدا كاسو ساري مركاسا إلهي مقلكي يا أرقي يا قلبي جيب إلهي كوكو ديقي وحاسو النعمة محل قوسيي إنا الشاكر نغطال لك الربا وإلهي كل شكر دين مويانه إنا إلهي عاصد لك مرة عملك وناكسن هل كانوا كصوبح يا جركن عملك حنا إسلا جركن أبو كصوبح يا كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة ثم إلينا ترجعون بإلهي نفول بقيرده ويدمينيسا ويدمينيسا ماها ويدمينيسا موتك ومحي موتك وحويان وبريج وبوندو ويان ودحيس أدويدني آخردا هبل بعد انت هداد مقشد waxay ka dhigan tahay noloshii adduunyada ayaa ka dhamaatay dadna noloshii aakhirada qofka u bilaabantay noloshii adduunyada way dhamaataa inta ayna ka dhamaanin ba fursad lagu siiyay ee makiinadan maashinkan ilaahay ku siiyay ilaahay daacadiisa u isticmaal araga ilaahay ha ku caasin maqalka ilaahay ha ku caasin hadalka ilaahay ha ku caasin gacantaada ilaahay ha ku caasin calooshaada ilaahay ha ku caasin waqtigaaga ilaahay ha ku caasin dhaqaalahaaga ilaahay ha ku caasin cimrigaaga ilaahay ha ku caasin hadaa nicmada maanta adduunka dusheeda sida aduga aad doonto aad u isticmaasho waxa ka dambaysa فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون با إلهي يري فوربك يا محمد ربك يا كدارتي با إلهي إليهي لنسألنهم أجمعين لما أنتود با إلهي إليهي نعمة دين تكون سننا وويديننا نعمة دي عمد هيدي أدوية كنت تعلق سنيد كويل سينا والله ويدين دونا عما كانوا يعملون وحي أدونك دوشي كو عمل فليين سوقبتين وويديننا با إلهي نعمة إسلامك تدك مسلمين تنا نعمة أوجه الرئيسية لقى حسابي بالنبي يقول والصلاة أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة عملك أوجه الرئيسية أبدونك مالك قيامها الحساب دونه
وصلاة أبو نبي قولي هذه صلاة دو هجابتي أتوسط والليباني ونبت قلي هذه صلاة دو كحما تبو نبي قولي هو قف قاس خسارة أبو نبي قولي عليه الصلاة والسلام نعمة دا سوى نعمة الدين صلاة دا هو رسول قف الله ويدين دونا نعمة دا كلام مارك تاني مادقة أما نعمة دا خلقك يا أبوركا نعمة الإيجاد نوحى الله ويدين دونا قفك هي نعمة الإمداد لبشي بالله ويدين بو نبي قولي ألم نصحح جسمك ونرويك من الماء البارد إلهي بأدونك كو أرندونا شكل كان هي صورة قروح دا بدن بشرقا ميانا نكو كو ديقين دمير وان كاديكي كريني أي وان كاديكي كريني جير وان كاديكي كريني ضفار وان كاديكي كريني بشر بني آدم بان كاديكني صورة دا قروح دا بدن با إلهي كو أرندونا ميانا نكو كو أبورين بيها قبول إدعاب بيسان ميانا نكو كو ديقين با إلهي كو أرندونا ماكينة بلاش لو مسين حسابها كذا بس وقفوهم إنهم مسؤولون بكذا بس جوجيا ما أنتوا مالنتي لو يدين يبقى إلهي أورندونا هلا ويدين لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره هدوا أهل الجنة يهي يهدوا أهل النار يهي والنبي يقول يهي لبتي سبك قيامة نعود في ميسو إلى نعمة لو يديو لحسابه cimrigiisii wuxuu ku soo dhameeyay cilmiga Ilaahay bare wuxuu kaga amal falay dhalinyarnimadaadii waxaad ku gaboojisay ku baaliyeysay ee dhalinyarnimadaadii ay kugu dhaaftay dhaqaalihii halka uu ka soo galay halka ku bixisana waa lagu weydiin doonaa afarta su'aalood cimrigii cilmigii maalkii iyo maaragtaane quwadii afarta ilaa qofka la weydiiyo la xisaabiyo banka qiyaamada buu nabigu leeyahay dhinacna loo dhaafin maayo ثم لتسألن يومئذ عن النعيم إلهي بالله ثم لتسألن يومئذ عن النعيم رسول كان عليه السلام أبو بكر الصديق رضي الله عنه أيا كصوبح قريس مالين ظهر أسقوا قاجونا مركز عمر لكل يا عمر ساعدنا دينا محاكو وضع مركز يا أبا بكر قاجان للسعودة بودي قاجو غير كي وحن عنمي لأن وأبو بكر عمر لبدو دي بإسراعي أيكم مقالة مدينة دحو ريقيا وحي أركي النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام مركز النبي كويري بحاسة عدن إني وقت الظهيرة وياني مركز سيدة الجوع يا رسول الله قاجان برنانك وقصوا بحني هذا غلط ودحف النكري ويني إنك أنا ما أنت واحد تتكينه أي كوكف تمام نيو وقتك ما أنت الكي كسود الله مقايدين تقنا هل كيك سوق عشينا هل كيك سوقنا هلبجيل ما شاء الله هلبجيل يا عناقيل إمام الأنبياء عليه الصلاة والسلام هي اللي بدي يصير صاحب أبي بكر يا عمر سد حدود مقالة المدينة أي إسكاك صهر بحين وقت الظهيرة مرقاس النبي يقول يا أبو بكر يا عمر ساعدا وحل كل اللي محايني وضع مرقاس سيداتنا الجوع يا رسول الله قاجا يا نوضا قاجو قاجدو عين ماها قاجدو ديبو سعود نمان ماها موضا يا قاجدو إني ديبو دع والله ابو النبي يقول أنا إيقا سو ساري نقل كيقا إلا وحي نيقا سو ساري موياني أرنك الله صوبح لين ما نقول الله صوبح يقول وجدك لابو مسعود وإسرائيل نس صحابي وتجين نجي صحابي جيب النبي أبو بكر يا عمر مرتقى ذي وعنتير وما أنت أي عنان مركي هلين أي نبي كويري إنكو دركس إنكو قاجونا يا دخل كاسوق شين كما بحن إلا إنكو علوش النبي حسن تيم ويانه لكن والله ما كل دارتي أبو نبي يقولي نعمة ده هلك ما أنت أتكو هالشين قيامها ولا نويدين دون أبو رسولك كيني وما لنكني ونن صحابي والنبي محمد أبو بكر يا عمر ومرتقى ذي كيف يصير يا أرجع يربو قل أنت أبو نبي محمد وكل يحيي أبي بكر يا عمر والله النعمة دا سوال الدين دون أبو كوي كم يا ما أنت إلهي إنك إنه نعمة إلهي أصبح وإبني
dadku maanta inta ka maqan bay eegayaan nicmadda intay haystaan ma eegaan nicmadda diintana waa lana weydiin doonaa nicmaddan maaragtaane iijaadka iyo nicmatul imdaadna labadaasba waa lana weydiin doonaa nicmadda diinta waa lana weydiino waa ammaano weeyaan diintu nicmatul iijaadi wal imdaadna waa lana weydiin doonaa ilaaha caza wajalla basharkaa dhigee ku jirsiiyey waxaad haysatana ku siiyey maalin baa ilaahay addoomihiisa uu sugi doonaa uuna weydiin doonaa yowma alqiyaama marka ha ku mashquulin ashyaa waxaan dibadda kaa yaalla ha ku mashquuline camalkaaga ku mashquul camalkaaga hagaaji weliba camalkaagu hadduu hagaago noloshaada adduunyadoo dhan baa kuu hagaagi aakhiraduna way kuu hagaagi hadduu laakiin camalkaagu baanaado noloshaada adduunyada lacag ma hagaajin karto dad baa qaar baa u haysta nolosha in lacag lagu hagaajiyo say nolosha u hagaajiyaan baa lacag meel walba uga dhaceen wax walba u barteen nolosha lacag laguma hagaajiyo nolosha waxaa lagu hagaajiyaa iimaankii camalka saalixa lagu hagaajiyaa nolosha waxaa lagu hagaajiyaa xiriirka adiga ilaahay niga dhexeeyaa lagu hagaajiyaa khudbatuljumca markuu nabigeennu ka bilaabay masjid aljumca fii madiinati almunawara alfaadii nabigeennu ku hadlo way qoran tahay waxaa ka mid ahayd erayadii nebigu saxaabada uu ku yidhi addoonka hagaajiya isaga iyo ilaahay xidhiidhka ka dhaxeeya ilaahay wuxuu u hagaajiyaa isaga iyo addoommaha xidhiidhka ka dhaxeeya imaam shaafici raximahullah ayaa arkay nin meel fadhiyo aad u murugaysan markaasuu la fadhiisto wuxuu ku yidhi murugtan kaa muuqata waa maxay ma masiiba kugu dhacday markaasuu yidhi haa nin masiiba ku dhacday baan ahay oo ma masiibo dadka kale aan ku dhicinoo tooda tuka weyn may kugu dhacday markaasuu yidhi haa inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun oo masiibada kugu dhacday maxay tahay buu ku yidhi markaasuu yidhi dadkii iyo aniga noqonno waan kala baxnay dadkii oo cid aan la heshiisahay iyo cid ila heshiisa ma jirta buu yidhi hooyaday waa dagaal baa naga dhex dhacay aabbahay waan isdirirnay reerkaygii waan kala tegnay qaraabadii waan kala tegnay jaar waan kala tegnay waa dadkii oo dhinaca iyo aniga oo dhinaca imaam shaafici raximahullah markiiba uu gartay bifiraasatihi culammadu faraasay lahaayeen nuur aliimaan iyo nuur albasiiray lahaayeen wuxuu arkay markiiba addoonkan isagii ilaahay xidhiidhka u dhaxeeya inuu go'an yahay ama uu yahay daciif markaasuu ku yidhi su'aal ma ku weydiiyaa i weydii buu ka yidhi wuxuu yidhi 100 qof raalligelintooda iyo mid keliya raalligelintiisa waa iyama buu ka yidhi markaasuu yidhi de mid keliya 100 qof inaad mar keliya raalligelisaa waxa ka fudud oo ka dhow hal qof inaad isaga raalligelisaa wuxuu yidhi waliba midkaa keliya hadduu raalli isagu kaa noqdo ood isaga raalligelisid 100ka kale isaga kaa raalligelin markaasuu waa kee markaasuu yidhi waa allah buu ka yidhi allah wuxuu yidhi halka nambarka iga qaldanaa baad ii sheegtay buu yidhi allah kaa jazaa siiyo nambarkaa uma saxaya buu yidhi xidhiidhka ilaahay ee innaka inoo dhexeeya haddaan adkaynoon hagaajisanno xiriirka iyo makhluuqa xidhiidhka inoo dhexeeyana ilaahay isaga inoo hagaajinaya gurigaagaad ka baxaysaa waxaad tidhi bismi illaah tawakkaltu cala allah walaa xawla walaa quwata ila billaah waa ducaa yaroo gaaban weeyaan oo ka soo baxaysa makiinatulcamal carabkay ka soo baxaysaa albaabka markaad ka baxaysa aqalkaaga ayaa tidhi bismi illaahi baan ku baxayaa tawakkaltu cala allah taladana ilaahay baan u dhiibtay laa xawla walaa quwata ila billaah xeelad aan maaragtaanay macaasidana kaga weecan kara anigu ma lihi iimana ahaanin daacadda ilaahayna quwad aan ku qabsan karo iima ahaanine macsiyadan ilaahay baa iga weecinaya daacaddan ilaahay baa ii dhib yaraynaya ducadaa baad akhrisatay ducadaas malag baa odhanaya hudiita waad hanuuntay wa kufiita wixii adduunyada muraad iyo xaajaad kaa yaallayna waa laguu qabto cid kalea kuu qabatay waa wuqiita balaayo iyo shar iyo masiibo wixii adduunyada ka dhacayayna waa lagaa ilaaliyey watanaxaa canhu shaytaan shaydaanna uu kaa leexdaa meeluu kuu soo maray ma jirtee shaqo tag baa laga yidhahdaa waa ducadaa yare gaaban bismi illaahi tawakkaltu cala allaahi walaa xawla walaa quwata ila billaah ducadaasaa la doonayaa dadka muslimku inay bartaan oo ubadka ay baraan oo dumarka ay baraan
إمام النووي رحمه الله كتاب الأذكار وحا كقرو كجمعيي من دلاشada qofku uu dhalan ducada lagu akhriyo ila eelka la dhigay ducada lagu akhrinay buu soo qoray adkaar an-nawawi markii kitaabka sheekhu uu sanifay ee maktabada la dhigayna reer dimashq way isku sheegeen kitaabka baa soo baxay kitaabul adkaar baa soo baxay waa kitaab ka waramaya maxay min dhalashada qofku markuu dhasho ducada lagu akhrinayo ilmaha yar ila qabriga la gelinayo ducada loo akhriyo ayuu kitaabka ku soo qoray sheekhu markii reedam ay isgaadhsiiyay yiraahday kitaabka abu sheekhu sanifay kii yiraahda kitaabka lacagan ku iibsado ku gato ma haysta kii yiraahda waxa lagu oran jiray bi'daara washtari al-adkar war daarta iibiyo kitaabul adkar iibso daarta iibi nago daarta maxaanu iibinaa dhoof qaxooti aqalkiibuu iibiyey maqle dalkiisiibuu iibiyey إلى أين هالكو صعدا إلى بلاد الكفر بو صعدا دولكي لا دونيا إن لغا سو هجرودو أيو انتو دارتي سي بيو هجرونيا عيالكيسي اسلانتين أفكا كو قادن أفكا والله بحسنيا maxaadu wada xageedu wada wadannadaas aan geynayna buu yiri mid baa yiri xageedii ciyalka wadannadaas aan u dhoofinayna buu yiri oo dalkeenana Afrika nabadgelyada la isku halayn karo buu oo halkaaba nabad taala nabad run ah damaan waligeed inay dhibaato ka dhacayso miyaa waa damaan yaa kama dhacayso Afrika buu gulay lama garanayo 30 sano soo socota way isbedeli kartaa تعليم ماله دكتور ماله شغل ما جرته نولل ما جرته نبتقلي ما جرته ها دول كاس نبضوا طالع دول كائن أمتك سوق هذا دارته ويبنيا مسلمين تدتك واجه إيمانك عملك الصالحة يدعوينك النبي أي يقين سنعينا وحي أورنجرين دارته إيبي كتاب الأذكار نيبسو دارته إيبي دعاء يا رجابنك يا قريقة بركات كبح إلهي كقول الهمية بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله دعاء نكيل هذا النبي يقول لي أفر تاس الله بشارين يا وادها نونتي وطريقي مستقيم كآيات كل عضي وكفيتا مراد وحي الدوية أتكل هيمنا والله قو قبتو عد ما كو ضبو شيء ووقيتا شرعية بلاية مصيبة وحي الدوية جرينا والله قال لي حيي شايدانا مالو كو صومر ما جرت الصعب لليها قفقاس الدعاء داس دعاء انا عرفك كسو بحيسا ماكينة العمل من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة أي ضمان قاضي ابو النبي يقول عرف كيسا يا عورديسا إنه معصية ذنبك إلى وجنة أبو بلن قاضا من تكفل لي ألا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة فقال ثوبان أنا يا رسول الله نبي محمد أصحابته قد حلوا وحويري أي بلن قاضية وأي كفالة قاضية إنه بني عادك وحبا ويديسا وأنا يكون الجنة وقو بلن قاضا ثوبان بعد أنك أقول بلن قاضي بيودي إن بني آدم قعدت يدي هوس لقل إن بني آدم كي قباحي وشيقل إن بني آدم سيدا أنت لسارا أنا أقول بلن قاضي أبو كيري شرط بالقال يا شرط حديث كورا محوها أي أيضا ما نقاضي عرب كيسي عورديسا إنه معصية يدن بك إلالين وأنا نكون جنة وبلن قاضي لماذا حداد حفظه جنة لقو بلن قاضي من تكفل لي أي كفالة قاضي أبو نبي يقول إياهي إنه بني آدم كعنت وصدقا وصدا أورن وأنا نكون جنة وبلن قاضي ثوبان بعد أنيقا ثوبان صحابي قاس مركو دادي سويناتي سوق مقالة المدينة isagoo faraskiisa wata intuu soo galo jeedalka faraska uu la dhacayo ayaa suuqa kaga dhici jiray dhexdiisa rubama laga yaabaa soo jeedalkaasi nin meesha maraya inuu kaga dhaco raqabadiisa inuu dagtiisa kaga dhaco ma oran jirin isoosi bal intuu dhaadhaco ayuu gacantiisa ku soo qaadan jiray markaas lagu oran jiray yaa thawban saaxibu rasuulillaahi baa tahay nin daaweyn baa tahay jeedalka agteeda ku dhacay ma natiraayda annaka noo dhiib
markaasuu odhan jiray nebi maxamed baa ballan la galay ballankii nebi aan la galay baan buuxinayaa buu odhan jiray laa tas'alanna bunaya aadama xaajatan wasal iladii abwaabuhu laa tuxjabu fallaahu yaqdabu in tarakta su'aalahu wa bunaya aadamu xiina yus'alu yaqdabu bani aadam baahidaada ha u sheegan baahidaada waxaad u sheegataa ilaaha albaabadiisu mar walba aan la xidhayn ee albaabadiisu ay furan yihiin kaa baahidaada u sheego haddaad baryada ilaahay aad daysidna ilaahay waa kuu cadhoonayaa bini aadamka haddaad barididna baryaday kugu nacayaan bini aadamku baahi badan iyo bugtaan badanba waa la isku nacaa taasay leeyihin bini aadan haddaad tidhaahdid keen uu ku nici ilaahay haddaad keen odhan weydid isna uu kuu cadhoon gacantan marka waxaa laynoo siiyey inaan ilaahay hoos dhiganno ilaahay barino maalik binu diinaar raximahullah habeenada ka miduu ku manaamay manaan baa lagu yidhi kac masaajidka ku yaalla xaafadda waa madiinatu basra inan yaroo shaab baa jooga oo ilaahay ku caabudaya 3 maalmood yarkaasi cunto ma cunin qaadoo raashin kariyo u gee baa lagu yidhi manaam uu kacay cuntadii buu soo diyaariyey maskiidkii u yimid wuxuu u soo galay inan yaroo shaab oo ducaysanaya shabaabkeenna iyo shabaabkaa isku eg cuntadii buu u dhigay uu la cunay markay isbarteen ay wada cunteeyeen buu ku yidhi aqalkaygu waxuu ku yaallaa xaafadda ka dambaysuu ku yaallaa waddadaad saa u soo mar sidaa u soo mar mar allii markaad baahateed cunto u baahatay ii kaalay buu ka yidhi hadalkaa markuu yarkii yaraa maqlayba wejigiisii buu beddelay wuxuu yidhi maad i taqaannay horay may maan ku aqaannay maya xalay adigoo hurda ka amarka kugu siiyey inaad kacdo cunto aad ii soo karisood ii keento kaa baryadiisa intoon daa'iman adiga ku imaadaa buu ka yidhi idaa sa'alta fas'al illaah kaasaan baryi buu yidhi meel kale lama baryo albaabka makhluuqa waan iska xidhay buu yidhi anigu albaabka khaaliqaan garaaca bas xidhiidhka ilaahay innaka inaga dhexeeya hadduu inoo hagaago nolosha adduunyada inoo hagaagi xidhiidhka inaga dhexeeya innaka ilaahay maxaan ku hagaajinaynaa jidhkeennan camalka wanaagsan waa inuu ka soo baxaa salaaddii waa camal wanaagsan soonkii waa camal wanaagsan qur-aankii waa camal wanaagsan sadaqadii waa camal wanaagsan fadhiga miskiidku waa camal wanaagsan dikrigu waa camal wanaagsan tacliinta diinta la baran waa camal wanaagsan diinta ummadda loogu yeedhaa waa camal wanaagsan baa la rabaa in laga shaqeeyo salaaddii subax ayuu nebigeennu ka baxay calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisii buu nebigu sidaa u eegay wuxuu yidhi kiinee baa saaka waagu u baryey isagoo sooman abibakar baa yidhi aniga kiinee baa saaka waagu u baryey isagoo qof bukana soo buuqday abubakar baa yidhi aniga kiinee baa saaka waagu u baryey isagoo janaasahii aasna ka soo qayb galay abubakar baa yidhi aniga kiinee baa saaka waagu u baryey isagoo maaragtaanay qof xanuunsanaya soo siyaartay abubakar baa yidhi aniga markaa buu nebigu yidhi khisaalkaa aan soo sheegay nin uma kulantaa hadday u kulantana ninkaas waa ahljanna buu rasuulku yidhi qabla salaat alfajr ayuu abibakr sidiiq isagoo sooman waagu u baryey isagoo sooman aasna ka soo qayb galay qof bukana soo siyaartay miskiinna soo quudiye wax soo siiyey daaralcamal bay joogeen ay garteen daarulcamal inay joogaan bay garteen daarulcamal baan joognaa daaruljazaa halkan maaha daarta laynagu abaalmarinaya adduunyadan maaha adduunyadani waa daartii camalkuna waxau ka soo baxaya waa jidhka maashiinka camalka samaynaya waa jidhkaagan jidhkan ayaa la doonayaa ilaahay in lagu raalligeliyo xubnaha bas haddaan xubnaheennaas ilaahay ku caabudno ku adeecno adduunyadan sidaan doonnaa ilaahay noo yeeli galabtaan sheegaaye kitaabka imaam ibn aljawsi raximahullah uu leeyahay sifatu safwa dasa cajiibuu ku sheegay cabdulwaaxid binu zayd nin la odhan jiray nin saalixoo caabidoo reer maka ayuu ahaa habeennada ka mida siduu u ducaysanayo u alla baryayey ayuu ilaahayow wuxuu yidhi ilaahayow gabdhaha muuminaadka eed aniga maaragtaane adduunyada aad aakhirada jannada iigu tala gashay hadday adduunka joogaan ilaahu itus buu yidhi
uu seexday markuu ducaystay buu iska seexday manaan baa lagu yidhi gabadha maymuunata sawdaa laydhaa ee ciraaq ku nool ee magaalada kuufa ku nool ee miiga kuufa ku nool ayaa ka mida gabdhaha muuminaadka jannada lagugu guurin doono makuu ka dhaqaaqay ciraaq buu tegey magaaladii kuufuu yimiday dadkii buu waraystay markaasaa loo sheegoo layidhi wartaasi waa tu macduurada oo dadka ma soo dhex gasho magaalada dibaddeeda xoola ku dhaqataa waa iyada waxaan rabay ii tilmaama halkaa maroo u tag baa lagu yidhi wuxuu u yimiday iyadoo adhi badan dhex joogta adhigaygii iyo waraabuhuna isla daaqayaan isla cunayaan markaasay jubbad suufa ayay markaa huwan tahay salaad bay tukataa 800 maan u malayn kitaabka inaan ka arkay subaxdoo keliya 800 oo rakacay tukataa way ka baxdaa way tukataa way xidhataa way tukataa markaa bay dareentay qof bini aadana inuu meesha soo dhowaado adhiga soo dhex galay salaadii bay khafiifisay kolka salaadii ka baxday ayay ku tiri yabna ziyaad yabna zayd bay ku tiri ballankeenu halkan maahayn oo aakhire iska soco bay ku tiri wuu la yaabay magaciisiina way sheegtay muraadku u socdana way sheegtay adhigaygiina u eegaayo waraabihiiba iska dhex socdo oo la cabayo oo la daaqayo oo dhex jooga wuxuu yidhi ina zaydinaan ahay oon arrinkaa u socda ayaa kuu sheegay waxay tidhi xadiidkii nebiga maadin lowday ina alarwaax junuudun mujannada famaa tacaarafa minha i'talafa wamaa tanaakara minha ikhtalafa xadiidka nebi maxamed uu yidhi arwaaxda bini aadanku waa askar ilaahay oo isku xidhan weeyaan caalamul arwaax baan wada joogaynay labadii ruuxee halka sare isku taqaanay adduunkana waa isgarano waa is-urino waa isfahmi hadday halkaa isku soo diidayna adduunyadana waa isdiidiye arwaaxdeena istaqaanee salaama bay ka tidhi ballankeenuna waa aakhiro su'aal kale ma ku weydiiyaa i weydii bay ku tidhi hadalkana soo gaabi adhigaagan waraabuhu kaa cuni maaya maxaad ku akhriday buuhi bal ii sheeg waxay tidhi ha la yaabin anigu ilaaha khaaliqa rabbigay xiriirkii naga dhexeeyey baan adkaystoon hagaajistay labada xiriirkii ka dhexeeyana ilaahay baa hagaajiyey tidhi inaku maanta diin marka la hadal qaado waxaan u haysannaa diinta manfacadeedu inay aakhiro un taallo bas waddanka yaman bari annakoo joogno ijtimaac ka qayb galayna ayaa gaadhi lankurusarana hormaray xagga dambe waxaa ku qornaa addunya bilmaal waalaakhiratu bilacmaal adduunyada lacag baa kuu haysa aakhiradana acmaal baa kuu haysa may hadalkaasi waa hadalka cilmaaniyiinta weeyaan adduunyadu inay ku hagaagta haddaad dooni aakhiradu inay ku hagaagta haddaad dooni labada daarood inay ku hagaagaan haddaad dooni waxaa kuu haya camalka wanaagsan baa kuu haya adigii iyo ilaahay xiriirka niga dhexeeya un hagaaji bas waata maanta bini aadamka caalamku ay garan laayihiin oo cilmigaan fahmi lanahay man axabba an yubsada lahu fii risqihi wayunsa'a lahu fii aaharihi falyasil raximahu buu rasuulku yidhi ninka jecel in arsaaqadda loo waasiciyo cimrigiisana loo dheereeyo qaraabadiisa ha xidhiidhiya buu rasuulku yidhi rasiqa in laynoo waasiciyo ma doonayno bal ninkii rasiqa in loo waasiciyo doonayo gacanta taag laakiin xaggee ka doondoonnaa iminka innagu meel kale raximkaaga xidhiidhi aabbaha hooyada adeerka abtiga habaryarta eedada ilma adeerada walaalaha kuway dhaleen xidhiidhi lacag dadka laguma xidhiidhiyo lan tasicu nnaasa biamwaalikum walaakin wasicuuhum bibasti alwajhi wa xusni alkhuluq buu nebigu dadka lacag laguma deeqa buu nebigu lacag dadka lacag kuma wada gaadhi kartaan dadka lacag kuma wada raalligelin kartaan laakiin dadka waxaad ku deeqdaan buu rasuulku leeyahay wejiga furan iyo dabeecadda wanaagsan wejiga furan iyo dabeecadda wanaagsan dadka lacag laguma wada deeqi karo khilaafadii cumar bnu khadaab radia allaahu canhu baytalmaalkii baa lacagtii halkaa noqotay maxaa ka yeella dadka u qaybiyey buuhi lacagta waa la qaybiyo haddana way hadhay jumco walba markii laga baxa salaada jimce dhallinyarta
iyo dadka masaakiinta iyo ducafada lacagta wada siiya buu yidhi cumar. cabdiraxmaan bin cawf hadloo yidhi yaa amiir almu'miniin baytalmaalka wixii lacag ku jira haddaad tidhaahdo wada bixiya ilaahay nooma keena balaaye hadday balaaye berri timaaddo maxaan gaashaan ka dhigannaa iskaga difaacnaa buu ka yidhi. markaasuu yidhi cabdiraxmaanow carabkaagaa shayddaan baa ku hadlayay buu yidhi maanta. laqananii allaahu xujatahaa wa waqaanii sharahaa buu ka yidhi. hadalkaa aad tidhi xujadiisa ilaahay baa ii laqinay, balaayada soo socotana sharkeega ilaahay baa iga badbaadiye oo naga badbaadiye. balaayadii iyo masiibada imanaysa waxaan u diyaarsaday maad garan buu yidhi. aan u diyaarsannay maya, nebi maxamed wuxuu u diyaarsaday baan u diyaarsannay buu yidhi. waa maxay? ilaahay taacaddiisa iyo taacadda nebiga haddaan haysanno balaaya nagu dhici mayso, balaaya noo iman maysa buu ka yidhi. waman yattaqi allaaha yajcal lahu makhraja wayarzuqhu min xaysu laa yaxtasib. sayidina cumar faaruq aayaddaasuu akhriyey. aayaddaasaan akhrisanaynaa oon haysannaa. haddaan ilaahay xadhiggiisa haysanno oon iimaan iyo taqwad kaamila aan leenahay, cidhiidhi kastoo nagu yimaada meelaan ka baxnaa ilaahay noo yeelayaa, arsaaqaddana meelaan ka filin baa ilaahay naga siinaya. silaturaxim, raximkoo la xidhiidhiyo arsaaqadda way siyaadinaysaa. istikfaartuna arsaaqadda way siyaadinaysaa. faqultu istakfiruu rabbakum innahu kaana ghafaara yursil الsamaa'a calaykum midraara wayumdidkum biamwaalin wabaniin wayajcal lakum jannaatin wayajcal lakum anhaara. istikfaarta haddii lala yimaado arsaaqadda ilaahay waasicinaya. taqwadii baa arsaaqadda siyaadinaysa. taqwadii tawakul haddii ilaahay la tala saartana low annakum tatawakkaluuna cala allahi xaqa tawakulihi larazaqakum kama yarzuqu الطayr taqduu khimaasan wataruuxu bitaanan buu nebigu yidhi. haddaad ilaahay talada u dhiibanaysaan, tala saarashadii ilaahay xaqa uu lahaa in loo tala saarto sida shimbiraha u quudiya ilaahay nii quudin lahaa buu rasuulku yidhi. shimbirtu subaxdii waxay ka baxaysaa gurigeyga iyadoo caloosheedu ay madhan tahay, waxay soo noqotaa iyadoo caloosheedu ay buuxdo. dukaan kama shaqayso, beerna ma falato, xoola ma dhaqato. yaa arsaaq, ilaahay baa arsaaqa. tawakul. acmaashaasi haddii jidhkeenna ay ka soo fusho bay culimmadu leeyihiin, nolosheenna adduunyada markaa waxay noo noqonaysaa janno ku sug. maanta muslimiintu markaad eegta noloshay ku jiraan, janno ku jiri maayaana cadaab baan ku jirnaa maanta. muslimiintu adduunyada dusheeda dadka cabsanaya maanta waa muslim, dadka qaxaya waa muslimiin, dadka lalaynaya waa muslimiin, dadka islaynaya isdilaya waa muslimiin, dadka la caawinaya waa muslimiin, dadka loo gurmanaya waa muslimiin, dadka xerooyinka waaweyn loo samaystee ee qaxootigooga la qaabilaya waa muslimiin. khilaafadii cumar ayaa abaar baa ka dhacday magaalada madiina iyo duleedkayga aryaaf almadiina. dadkii miiga ahaa xoolihii baa ka dhammaaday, magaaladii bay u soo qaxeen. cumar binu khadaab reer madiinuu tarqiibiyey. waxaad haysaan la baxa buu yidhi. nin walba wuxuu hayey buu bixiyey. markaabaa dadkii oo dhan raashinkii la siiyey. abaartiibaa daba dheeraato, roobkiibaa raagay. maalin walba 7 qof baa dhimatoo la aasa. maalin walba 7 qof baa dhimatoo la aasa. markaasuu cumar binu khadaab warqad buu u diray camar binu caas oo masar jooga. wuxuu yidhi adigaa jooga waddankii barwaaqada badnaaye webiyaalka lahaaye, soo dir macaawano. markaasuu soo diray maaragtaane macaawano awr raashin laga soo buuxiyey. macaawanadii markii la keenay dadkii la siiyey, haddana abaartii way daba dheeraato, roobma di'ine, gaajadii way sii ziyaaday, faqrigii uu sii ziyaaday, abaartii way sii ziyaaday. nin saxaabiya orgi yar soo qabtay, orgigii buu qalay, hilibba uu ka waayay lafa mooyaane. waa muxammadaa buu yidhi. uu seexday habeenkii, nebigu manaam ku arkay calayhi salaatu wasalaam. yaa rasuulallah, dhibaatadaasaa nagu dhacday. markaa buu nebigu ku yidhi cumar salaaniga gaadhsii. laakiin cumaroo sidaan ku moodayay ma noqon, waa ku siday ka dhow buu ka yidhi. cumar salaan iga gaadhsii horta, sidaan ku moodayayna maad noqon. uu kacay, nin hurdadii buu ka kacay, masaajidkii buu yimiday. cumar buu u sheegay. cumar muslimiintii oo dhan buu u yeedhay, saxaabadii. farriintaa buu nebigu ii soo diree, maan qaldamay, bal ii sheega. haa, waad qaldantaa laga idhi. waad qaldantay. maxaa ku qaldamay? kolkay abaari ay timaaddo ee roobku nagu yaraado, waxau nebi maxamed uuna baray
inaan roobdoon salaatul istisqaa inaan tukanno adiguna amiirkii mu'miniinta tahay amiir baa tahay amiir khaliif baa tahay ilaahay ducadaada waa aqbalayaaye dadka intood u saartid ma aragtaane musallaha intood u saarto han noo duceey bay ku yidhaahdeen markay bannaankii u soo baxeen halkaa uu cumar uu ka duceeyey halkii isagoo cumar taagan ayaa fadka waxaa laga dhex maqlay oo la leeyahay ataaka alghawthu ya abaa xafs yaa cumar gurmadkii aad dalbatay waa kuu yimiday halkii iyo koo joogaa ilaahay roobkii siiyey salaad bay la yimaadeen xaajadoodii ilaahay u daboolay macaawanaa u timiday baahidoodii way sii ziyaaday halkaa maxaan ka fahmaynaa bani aadamku mar alle markay bani aadan iyo makhluuq u jeestaan baahidoodu way sii ziyaadi faaqadu way sii ziyaadi mashaakilkuna wuu sii biirayaa mar kastoo bini aadamku xagga ilaahay u soo noqdaanna ilaahay xaaladooda isagaa markaa bini aadamka bedelaya muslim ayuha almuslim acmaal axkaam waxaa ilaahay nabigeena inoogu soo dhiibay hadday muslimiintu gartaan nidaamka caalamka o dhan bedelaysa roob haddii la waayo gaalada maanta la leeyahay teknoloji bay gaadheen horumar bay gaadheen aalad ma hayaan ay roobka ku keeni karaan walaakiin nebi maxamed innaka wuxuu ina baray salaadii iyo ducadii roobka lagu keenayuu nebiguna baray nebi reer bani israa'iila dagaal buu galay dagaal jihaad dagaalkii oo socda oo gaal iyo islaam la isku laynayo salaaddii casar baa gaadhay markaasay nebiga u sheegeen yidhaahdeen yaa nebiy allah salaaddii casar baa taagan salaaddii baa taagan nebigii waxaa la yidhi fartiisuu ku fiiqay cadcadda sidaa ugu fiiqay waa nebi ilaahay doortoo rasuula markaasuu yidhi adigu amar baad ku socotaa annaguna amar baan ku soconnaa kaan amarkiisa ku wada soconno ayaan weydiisanay inuu ku joojiye halkaa noo joog buuri ilaa aan gaaladaa kala baxayno halkaa ha ka dhaqaaqin xadiisku waa saxiix dagaalkii bay wadeen gaaladii bay jebiyeen way ka guulaysteen khaniimadii xoolihii bay la soo hadheen kolkay guushii ay gacanta ku dhigeen wax walba ay guulaysteen ayuu nebigii ku yidhi cadceedda inoo eega weli halkii bay joogtaa soo ma joogta haa salaadda imminkaan tukanaynaa buu yidhi markay salaaddii tukadeen buu yidhi haddaba imminka iska soco iska dhac buu ka yidhi horumarka caalamku ma gaadha imminka caalamka horuu maray maxaa horuu maray birahan qayliyaa horuu maray birahan wax duubayaa horuu maray bani aadamku ma horuu marin maanta hoos baan u dhacnay innaku maanta keligii meel joogaa maqlay fadka dhexdeedoo laga leeyahay beerta hebel u geeya daruurta beerta hebel roobka u geeyo daruurta u geey u weeciya daruurtii buu eegay meel bay ku da'day barkad biyay ku dhacday beertii buu yimid nin wuxuu arkay dhex taagan oo biyihiisii beerta mangadka ugu weecinaya markaasuu yidhi magacii buu u sheegay magacii uu ka maqlayay fadka daruurta dhexdeeda iyo magaciisii baa isku tegay buu rasuulku yidhi markaasuu yidhi maxaad iga weydiisay magacayga wuxuu yidhi wallaahi wax kale kuma weydiine waxaan maqlay magacaaga oo fadka dhexdeeda laga sheegaye beertaadan maxaad ku samaysaa ii sheeg daruurtii waa ka ilaahay adiga uu kuu keeneen wuxuu yidhi haddaad i weydiisay beertaydu markay ii soo go'do ayaa saddex u qaybiyaa midhaheega qayb beerta ayaa ku celiyaa qaybna aniga ubadkayga ayaa cunno isticmaalna qaybna waa sadaqadaystaa buu yidhi xadiistaas waa wada saxiix waa bani israa'iil ayuu nebigu nooga sheegaya qisas saxiixa muxuu kugu sheegaya nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa lagugu baraarujinayaa haddaad camalkaaga hagaajisid haddaad adig iyo ilaahay xidhiirka inii dhexeeya haddaad hagaajisid noloshaada adduunyadan iyo taakhiro waxba kaa xumaan maayaan innaka waxaan doonaynaa wax walba inaan ku hagaajinno lacag wax walba inaan ku hagaajinno awood wax walba inaan ku hagaajinno qabiil wax walba inaan ku hagaajinno caqli may nolosha adduunyadan ilaahay baa haya nolosha aakhiradana ilaahay baa haya ilaahay nolosha adduunyada iyo taakhiro labadaba wuxuu ilaahay kuugu hagaajinayaa waa diin waman araada alaakhirata wasacaa laha sacyaha wa huwa mu'minun faulaa'ika kaana sacyuhum
mashkuura saci baa la sheegay saci mashkuur ilaahay u saci ninkan beertiisa inta ka soo gooda ayuu xuquuq alcibaad buu ka ilaaliyay bas xaqii addoomuhu ku lahaayeen waa sadaqada ku kaloo reer bani israa'iila ayaa mid kaloo reer bani israa'iila ka dalbay dayn 1,000 dirham 1,000 diinaar wuxuu yidhi lacagta hanku amahiye xadiiskunaas waa saxiix hanku amahiye ayaa markhaatiya markaasuu ilaahay baa noo maraga buu ka yidhi kafaa billaahi shahiida buu ka yidhi markaasuu runtaas haddaad dhimatid haddana waa dayn weeyaane ayaan u raacaa lacagtaydii kafaa billaahi wakiila ilaahay baad u raaciyo iga wakiila buu yidhi markaasuu wallahi waa runta lacagtii buu u dhiibay way kala qorteen maalintuu lacagta keenayo labada nin waxay ku kala nool yihiin laba qar oo jasiirad badda u dhaxaysa maalintii kan daynka loo soo celinayay dhinacaa buu soo joogsaday kii kalena qarkii kaluu joogaa doontii uu raaci lahaa maalintaa maysan iman buu rasuulku yidhi sal alla alay wasalam kolkay gabalkuu sii dhacayo haddeetoole doon ma jirto wax la raaca ma jirto ayuu qori intuu soo qaaday ayuu dillaaciyey warqad buu ku qoray yaa rab badda adaa abuuray dhulkii cirka adaa abuuray makhluuqa adaa abuuray walaalkayga muslimka maalinta lacagta uu idayminayay marag buu ii weydiistay markhaati adaan kaa dhigto uu ku qancay wakiil buu ii weydiistay adaan kaa dhigto uu ku qancaye ilaahow maanta aniguna waa anigaa imidda baddii markab iyo doon ayaan waayo la kulmi waaye ilaahow addoonka ammaanada iga gaadhsii buu yidhi adaan noo dhexeeye warqaddii buu ku duuduubay qorigii buu dhex geliyey mara kale ugu duuduubay baddii buu ku tuuray كم مسافة أنت ولا حيس لا ندري أنت لكن سيدو دونا يلا وايو إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا قفك إلهي كبغى إلهي كعب صدا حق إلهي إلهي حق بن هذا كان إسك إلهي أمورتي صورنا با إلهي دو حق دغنا فضي حان الله شنبوات كيمانت qof kasta maanta la fadhiiso muslim oo cabanaya madaxdu way cabanayaan oo shacabka ka cabanayaan shacabka muslimiintu way cabanayaan madaxdooda ka cabanayaan aabuhu uu cabanaya inanku ka cabanaya inanku uu cabanaya abihiibu ka cabanaya inantu way cabanaysaa hooyadeed bay ka cabanaysaa jaarku ka cabanaya qaraabadu ka cabanaysa qof kasta waraysa waa kaase wuxuu ku leeyahay xaqaygi baa iga maqan حقاك إلهي كقادو حق بني آدم لكن اسكا إلهي تؤدون حق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم بنبي يقول صحابة مركي ويديين ما نحضو هذي حقيقة نقد هذي حقيقة قاتانا بالكورن مرقابو نبي يقول حقي نقول أيهين إنكم أقودوا اسكا إلهي حقين إلهي لك قادي دون نبي رسولك يقول لكن إنه حقه إسكايل على يوهال كوي مدي قريجي مبدا كتوري قريجي أبيها دول صدينا يا أي حقيقة للسوق علي كي كلا مركو أي واحد دونه وصوص عطية مركب أيوني بالقريجي يا ربدا دول سعداء ما تسكر قادتي دول غير كاجي حابها ودك تدعوا أججب صدام خلكو قاضي غير كيبو أجيي وأججبيي ورقدي بكسر بحذي أو كلا فري لعكتو سديدية يا سوق أرسي يا سوق أرسي إلهي لا سوق أرسي إنك واحد مودنا النظام كان عالم كأنه كمبيوتر أدوية كسعته وحي أدوية دولة السمايين عالم كان نظام كإلهي بكسعدا ونكسع عنجري ونكسع عندنا لكن ضدك النظام كإلهي لا تعامله ما أنت عويا قصص كاسود النبي يقول نوقش شيء وضدك النظام كإلهي كجفة إيديستي إيماني الله كعبسي الدين يتقوى إنك أنا ما توح علي نقول قفلي صلاته منفعته قبرك كسو الدويدا شقا وحقوها إذا شقوا وكذا اللي يريد أن يبضح يكون رمادين بضح صحراء يكون رمادين
bari dambe labadii nin sarkeen uu ku soo boodo uu calaalay iga raalli ahaw maalinta badii waan imid waxaan soo raacaan waayay awal walin hawal bahaarin ilaahay maraga aad ka dhigatay kafiilka aad ka dhigatay ayaa amaanadii ka soo gudayo isla maalintiiba lacagtii way soo gaadhay buu ka yiri isla maalintiiba way soo gaadhay lacagtii qisaskaas waxa la inoogu sheegayaa qaar quraanka ilaahay ku sheegay qaar nabi maxamed axaadiis saxiixa inoogu sheegay waa maxay weeyaan waxa uu nabigu inaga doonayaa oo nabigu inala doonayaa inaan noqono kuwa rabbaaniyiina walaakiin kunuu rabbaaniyiin maadiyiin lama noqdo maadigu waa maxay waa qof waxa uu arkayo inuu aaminsan ka maadi balada maadi waxa uu arkayo inuu aaminsan yahay rabbaaniguna waa maxay warka ilaahay nabigu ay sheegeen buu rumaysan yahay warka ilaahay nabigu ay sheegeen marka inaan amalkeena hagaajisana adduunka la inoo keenay wallahi amalka haddaan hagaajisano nolosheena ilaahay ba hagaajin Umar ibn Abdul Aziz rahmatullahi alayhi maalintuu dhimanayo xoolihiisii oo dhan u bixiyay waxa lagu ciyaalkaaga waad kaga tagtay faqri baad kaga tagtay oo ciyaalkayga diin baan baray buu ilaahay baan baray oo rasuulkoogaan baray oo shariicada islaamkaan baray oo xiriirka ilaahay baan baray diinta aan baray hadday qabsadaanna waa saalixiintana ilaahay baa tawalliyay buu arrimahooga gaajo uga yaabi maayo buu ciyaalkayga waayo ilaahay baan baray buu ilaaha qaniga ku xidhay buu ubadkayga haddaan uga taga xoolo buu dhaxal oo ay faasiqiin ay noqdaanna aniga qabriga lagu weydiin maayo maxaad uga timid xoolaha ay ku tumanayaan la oran maayo kulligood baa leeyahay maalintuu dhimanay waxba ugama tagin laakiin kulligood wada aqniya baa ilaahay ka dhigay kana diin baa la baray inaan ubadkeena diinta barno oo inaguna jirkeena diinta barna loo baahaya jirkeena xubnahan gacantu ahkaam bay leedahay dhagtu ahkaam bay leedahay ishani ahkaam bay leedahay arabku ahkaam buu leeyahay calooshu ahkaam bay leedahay waqtigaagu xukum buu leeyahay inaku maanta waxa leedahay dadku waqtigay aflagaadayaan maanta yasubbu ad-dahra wa ana ad-dahru ba ilaahay ina aadan baa aflagaadeeyay oo waxay caayaan zamankay caayaan zamanka iga xun zamanka iga liita zamanka iga jeeda zamanka maanta aniga halka ay dhigay zamankay caayaan baa ilaahay yiri zamankuna waa aniga baa ilaahay yiri waqtigu waayo waa aniga baa ilaahay yiri uqallibu al-layla wan-nahaar maalintii habeenka ayay biluhu ka samaysmaan sanadaduna ka samaysmaan qurumuhuna ka samaysmaan saacaduhuna ka samaysmaan waxaasoo dhan wuxuu ilaahay leeyahay waa aniga amarkaana iskale maalina wax ka bedeli mayso habeen wax ka bedeli maayo afrika wax ka bedeli mayso Europa wax ka bedeli mayso lacag wax ka bedeli mayso faqriga wax ka bedeli maayo qabiil wax ka bedeli maayo qabiil hoosana wax ka naaqsi maayo ka wax waliba bedelay nidaamka gacanta ku haya waa ilaahay inaan barana waa nagu waajib وريمانك برشدي اسمه واجبة من سوا سنة يا فرض عين على كل مسلم وياه إيمانك إلا برتاع فرض عين وين على كل مسلم والشيء أقوله الرجال النبي محمد صحابته وبري وياه تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا بلادنا إيمانك أيام برني كدمنا قرآنك أيام نقول حقي ثم محيط شاقيسا تراخي زمنك إيمانك أي برتين إيا زمنك قرآنك أي برتين فرق بأول حاجة بركة سيد هذا قرآنك برجدي سيد دنبنا إيمان بنوغ الزيادة قرآنك برجدي سوا معي قرآنك أحكام دي بلا صعوتا صلاة دي صومكي زكاة دي صدقة دي حجكي أمر بالمعروف كي لأنك كذب إيمان بنوغ الزيادة صلاة دي إيمانك الزيادين إساء صومكي إيمانك الزيادين إياه حجكي إيمانك الزيادين إياه زكاة إيمانك الزيادين إساء صدقة إيمانك الزيادين إساء حقوق بني آدم ولا إسكايل عليها إيمانك أجي دين تهدي كويل علينا إساء لكن وحصر معك وريي نبي قول مد الله ببرئ الله الله مركي برتين
amarka inay qaataan baa u dhib yaraatay maanta dadka muslimiintu ilaahay macrifadiisa iyadoonan qalbiga galan haddaynan qalbiga macrifadu aynan degin waxaad arkaysaa qofkii isagoo qur-aanka yaqaanaa oo salaadiina aan tukan karayn ma dhacdo kuwa maalin qayilayo iska barjeynaya waa kan jamaacaddu dadkay ziyaartaan ma ogtahay ayaan u gallay si fiican bay noo soo dhaweeyeenoo BBC iyo raadiyoogina way baktiyeen oo wayna dhegaysteen markaan u yar dhammaynay wacdigii ee nidhi dee fadhiguna kala fiicane masaajidkeenna mari oo naya raaca mid baa gacanta taagoo yidhi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa soo diray waxa lagu yidhina maad maqasheen buu yidhi markaasaan aamusno kuwii la barjeynayay baa yidhi war ninkani waa jaamiciyo waxbuu inii kordhina ka dhegaysta haye noo kordhiyo jaadka uu takhsiisan yahay sigaarkana nebiga waxa lagu yidhi maad maqasheen bal noo sheeg fadakir inamaa anta mudakir lasta calayhim bimusaytirin ilaa man tawallaa wa kafar hadalkaa ka warrama dadka waani baa nebiga laga yidhi aduu waaniye uun baa tahay diinta dadka qasab kaga dhigaya ma tihin nebigii baa sidaa lagu yidhiye waad noo sheegteene qasab ha nagaga dhigine iska socda markaasay kulligood yidhaahdeen ninkaas sheekhaygu waa ninkaas shaydaan baa sheekhiina aqoontii uu hayaa laakiin taqwadii baa hoos u taalla iimaankii baa daciifa annagoo jawlad bari soconna baa nin u tagnay soomaaliya oo la yidhi ninka waa soomaali waa nin meel fadhiyo khamri cabbaaya wadannada gaalada markaasaan u tagnay oo salaamu calaykum markaasaan calaykum assalaam xaggeed ka timaadeen meesha ma miskiid baa meesha salaamu calaykum tadna leedihiin buu nagu yidhi maye dalkii baan ka imanno qaaraddii afrikaan ka imanno ininkaana soo buuqanno inaad miskiidka noo raacdaan doonayno miskiidka ah diinta ayaa ni baray ninka buu yidhi diinba ma taqaanaane sawka ilaahay yidhi maa laa taqrabu salaata wa antum sukaara xataa taclamuu maa taquuluun nin sakhraana oo aayaddu daliilinaya eeg macluumaadka uu hayaa laakiin yaqiintii iyo iimaankii baa daciifa markaasaan ku nidhi laa baas na raac sidaa nagu raaca ima raacayo na raaca jamaacadda intii kalead soo salaamay na raaca ilaahay fadligii ninka sidii buu nagu soo raacay jamaacaddii buu la dhegaystay habeenkii buu nala seexday subaxdii markuu kacay ee khamraddii ay ka bacday uu arkay miskiid laga dul eedaamayo uunbuu telefoon qaatay oo wuxuu yidhi uun ayaa meeshan i keenay ii sheegay buui waan xidhibe booliis baan ugu yeedhayay waddankan haddii booliis lagugu yeedho waa khalaas waa lagula tegi uun markaasaan idhi ar cidba kuuma yidhi naga raalliha waa iska socow bas iska socow markii dambe raggii noo sheegeen waxay nagu yidhaahdeen ninkaa waddanka markuu soo galay caalim buu ahaa weliba masaajid waddanka ku yaalluu imaamka ahaa bay nagu yidhahdeen maantana dariiquu khamriga ku cabbayaa macluumaadku waa shay waa gooni iimaankuna waa gooni weeyaan ummaddu maanta iimaanka hoosu yaalla iimaankeena inaan kor u soo qaadnaan u baahannahay markaas sidaa darteed bay saxaabada rasuulku inay iimaanka bartaan oo iimaankooga badbaadiyaan wax walba way ka doorteen wallaahi wax walba way ka doorteen haddaan saacaddaa gaadhaan u malayn waad yaa ma soo gaabayaa kolka in yar insha allah in yar insha allah allah ina barakeeyo saxaabada rasuulka diintu markay dadaal kugu timaado noloshaada wax kasta waad u hurtaa abu salama markuu hijroonayey xaaskiisii baa laga reebay uma joogsan waxay ka dhigan tahay xaaskaagii iyo ilaahay nebiga kala dooro ilaahay nebiguu doortay islaantii waa laga reebay ilmihiisiina tolkii baa la noqday isagiina madiinuu joogaa sanad bay kala maqnaayeen maxay u kala maqnaayeenna diin darteed suhayb arruumi markuu ka baxay magaalada maka
هجروني قريش بعد إحدى وقشي أضو السعلوك وفقيرا موت مدي أضو غني نجاب حميسد أما حولها هالكا دق ومحمد أضو فقير كده بتق أما العقد هذا حيسوى مقالة ما كل نقو وحيد أرضا الرومي أنا هيبودي حداد الدشان أنا وحبا اللي قدلي سو العقل مرة بتانها لعقد ديواتنا قاتها انتي كلنا ملهم لا يكو أساتها كلبح وقاتها نبي جيجي هكذا بتق يدافعوني وحلقوا امتحان الصحابي ومعي إلهي الرسول كي سو دنعا يا العقد هذا كلا دوره متكابو دورت بار متكو دورت إلهي بو دورت يا رسول كيس فقير مركي بحوليس يودن بودي بي وحر طريقه يبناي هذا الرسول كي بكذا بتجياي سؤال لقى يدوا كاس وضد مر مدينه يسقون سو غادن ايا قران كو سو دغيا ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد مقالدي مدينه مركو سو غلينا رسولك الهي با هرتاغنو له ربح البيع يا ابا يحيى ربح البيع يا ابا يحيى يا ابا يحيى غنعسغا مانت الهي الله غشي واد كمعاشتي بايع مشرك الهي الله غشي واد كمعاشتي برسولك ليه وصل يا رسولك اسم لعقت يا الهي يا رسولك سكلا دورو لعقت يا رسولك waxay kala dooranayeen ilaahay rasuulkiisa ay qaadanayeen qabiilka iyo diinta islaamka kala doorana midkay qaateen wada mustana bahalka Soomaalidu ay ku dheeraysaa waa bahalka dalkeeni aan ku weynay ya Allah Mus'ab bin Umayr wad garanaysaan ilaah raali ka noqday muqri وأنكي أقوه الرئيو نبي مدينة وصادر ويان وقرآن كبر الرئي مدينة إيادون مدينة نبي محمد ونن إيمان مسكين لقد السن وأنكي قري دين توقع ليبوها رئي مدينة إنده هوغي أوبتكوك مصعب يكجعل آيان ولا الكيسي كيرا إيه هو يدي أيلاد شؤون الناس دايي أيا كجرة الضباطن كي مشركين تدقال كبدر لغو سوق قبتل صوحرين يانا صوحر من ريم مدينة أنصار يا صوحر لو هيستا هل كابو جيفا مصعب نساس هو بحث على أنصار تي مهاجرين تي وانكي مدينة دين تقارسيه ويان مرقا أبو الظلم رصاص ويقو ولال كي وهو يدي بعد الشيء وكون الناس دايي ويان ولال حارق ويقو أتكيه هيقدم عيه إيه شفاعات قادوا كدب عدبودي مصعب صدان تو يقبودي يا أخ الأنصاري walaalkayga ansaariga reer madiinow marba nabigu haduu yiri nin walow ninkaad soo xidhay dadkiisaad madax furasho ka qaadanaysaan uu nabigu yiri kan waad ka macaashto hooyadii baa xoolo badan leh lacag badan iyo madax furasho badan baad ka qaadan doontaaye xadhiga ku adkeegu ka yiri walaalkay adiga mahbuuda waa kaabud ansaariga ka diintan walaal ku nahay cid walba aniga iga dhow ka yiri xadhiga ku adkeegu waa gaal weeyaan أبا سفيان ومركا أنا الإسلام أيام قال هذا مدينة ويمد النبي يشيس إنه لقلو إن أنت زي رملة بنت أبي سفيان وزوجة النبي عليه الصلاة والسلام أيو أقل كيكو قوة عدي وحوض معي قوش النبي قالوا كفريست وكهوس قال مركا سفيان أبو ما هل دينتي النبي محمد ما هل كابيكو قارسي السي إن الأبها كيكو دالي قوش أتكقب وقوش شاير هدو قلان ويدو وعيتني مي أبهاي باتهاي قوش النبي محمد وقول طاهرة هذا قلنا مشرك نجاسة هاي بيكوتري نجاسة قوش النبي قودي دن هاي بيكوتري إسلام مسلم أكتودا إلهي يكتس دين إلهي الرسول يا قيم أكتودا إنك أنا ما أنت والله كسر حالك إن الدين تأكتي نقيمة يا لا تعيا دونيا يا وديارة ده دين تهكش غينه marka diinta shaqadeeda lagu bandhigo haruso waayo diintu adduunyada iyada ka raaci waxba ka raaci maayaan oo shay kasto oo maalkaaga waqtiga iyo nafta la geliya qiimihiisa la gartaa mobilka yareed wadata Soomaad arkisid ilman yar inuu qurrad ku xaquuqa madoo golan muraayadaas musbaar hadduu soo qado soo xaquuqa ka waran أصبر نبى كيلو سكر صويب سدي مقالة ولا دحمريا بعض السكر تقول ستي بعد ضلوا شنطي
way daadinaysaa dadkoo dhan baa qayli war sokorta qabo maxaa ka galaya sokorta qiimaheegaan garanaynaa lana lacag baa lagu iibsaday waxbay tartaayoo shaahay macaanaysaa diintii baa maanta daadanaysa oo halkaa muslimiintii markii masjidka la soo galo suuqa inta ku hadhaysa inta soo galaysa iyo ma badan sidaa weliba idinku waad naga fiicantihiin diintii baa maanta inaga daadanaysa inaan soo qabanno soo maha dee ma qolo keliya ku daynaa mise kulligeen gacmaan isku qabsannaa ballinkiina dadaalka diinta ka wada qayb qaadan oo gacanta taag insha allah dhahada waqtigan waxaad ku jirtaan ardayda iskuullada dhigatana fasax bay ku jiraan ramadaankiina waa laga baxay ijtimaacii hargeysana 2 bilood iyo wax la jira inaga xiga jamaacadda waxaa la doonayaa ilaahay dartii u dhaqaaqo maalkooga naftooda ilaahay dartii u bixiya لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية نبي قولي markii maka loo soo hijrooday buu nabigu yiri hijrada boo maka laga hijroonaya way dhamaatay laakiin jihaad iyo niyad baa jiray buu nabigu yiri jihaad iyo niyad hadii la inaga dalba diinta inaad u baxdaan u baxbu rasuulku yiri maanta waxa la dalbayaa in kulligeen akhyaar iyo dhalinyaro iyo culamo iyo caamaba diinta dadaalkeega gacmaha isku qabsano oo nin walba maalkiisa iyo naftiisa waqtigiisa oo ilaahay dartii ugu baxo إن شاء الله هذا إن شاء الله هذا يا ديار هي قعدت ويا راوي وصلوا طالع أنا قعدت ما قوسنا وجبت اللي تجي معي وين ولا قعدتين ما شاء الله أساس ها هيا استاجد سوما قرن هي بلوحي بلهن لبا بلود أما أفر بلود أما بل أما أفرتن أي النيون يا إلهي درتين أنا بحو وان سين نيونيا وان اسقريا هدي الهي يدي بيرينا وان بحيا هدي ظروفتي سامح ويدين النيدا الهي يقريا نكيلو واكو دعينا سركع ولا ليال سركع ولا ليال وخير وين خير بين نقم مخلص ساقه ولي ان شاء الله ما شاء الله ما شاء الله هذا ما شاء الله هذا ولي ان شاء الله halka dhaxda igu toosan baa dadku yar yihiin inta kacday wali halka igu toosan naga dhabar rag ma sha Allah haye yalla naga badan 42 bilood iyo bil iyo 4 bilood bisha soo socota ilaa bilaha dambe ilaa ijtimaaca hargeysa ballan ma hina waa niyad weyn waa niyad hadii ilaahay ku waafajiyana waad baxday hadii duruuftu ku saamix weydana ajarka ilaahay ku qoraya waa tijaara ma Allah weeyaan man hamma bi hasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatun kamila bu rasuulku yiri هيا والله نغا فرحيه الله نغا فرحيه كرديه ان شاء الله احنا تقول سميه dadkii qorayay waa laga batay ma sha Allah xaga damba meel la fadhiisto meel masaajidku waa buuxa ما شاء الله ما شاء الله halkiina fadhiista iska fadhiista bas nabiga ku salliya والله نقرأ إن شاء الله سوما نيون والوحي نيودو قعدت تاقا مركلة هذا هو وذا تاقين بقى والله نقرأ إن شاء الله حق سرا كاميرا حق سرا قاضي والنيونين إن شاء الله هبين دم جمعة هبين دمنا مركز كجمعة كسوق قيب قلا اجتماعي هرقسنا ودويها وسبتمبر بسنة كان ديب الله يريحي إذا صوت ديارية جماعة عدد إلهي درت أسعودي إني إمنا ينا النصريها لقى فايديست إن شاء الله آمين هذا هي وضد بدن بين دعينا ونود دعينا آمين هذا بسم الله الحمد لله ثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا معنا شقيا مطرودا ولا محروما اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا
ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.